kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan baa ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga ilays ee caawa kale aad daawan jirteen barnaamijka bandhiga ilays idil ahaantii baa haddii allaha awood lihi ogolaado waxaana ku soo qaadan doonaa mashaqada ka bilaabatay magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore taasi oo weli taagan daawadayaal sida aynu wada ogsoonahay horaantii bishani waxa kooxda Daacish loo yaqaano ee ka jirta dalka Liibiya ay dileen koox ka tirsan amaba ahayd Ethiopian kuwaasi oo sida iyagu ay sheegeen ay u dileen kadib markii ay diideen in ay qaataan diinta islaamka haddaba dilkaasi kadib ayaa dalka Ethiopia waxa ka bilowday wax loogu yeeray baroordiiq ama murugo ay ka dhalatay caro karar dhaaftay oo shacabka dalkaasi Ethiopia ay sameeyeen waxaana gabi ahaanba isbedelay xaaladii dalkaasi Ethiopia guud ahaanba gobolada dalkaasi Ethiopia waxa ka bilowday mudaharaadyo waaweyn oo loogaga soo horjeedo maamulka ka arrimiya dalkaasi Ethiopia magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Ethiopia ayaa waxa ay noqotay halbowlaha halka ay dhibaatooyinka iyo waliba mashaqooyinka lagaga soo horjeedo maamulka dalkaasi Ethiopia ay ka bilowdeen taasi oo tiradad ah ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena dad gaaraya ilaa iyo 2,000 oo qof xabsiyada loogu taxaabay mashaqadaasi ayaa sidoo kale waxa xabsiyada loo dhigay kumanaan arday ah iyo waliba mas'uuliyiintii ururada mucaaradka ah ee dalkaasi Ethiopia kuwaasi oo sheegay in ay ka qayb qaadanayaan amaba ka qayb galayaan doorashada la sheegay in la qaban doono 24 bisha May ee inagu soo foole haddaba arrimahaasi ayay xukuumadda wayaanuhu iyaduna dhankeeda waxa ay ka qaaday jawaaba kulul oo ay kala hortagtay guud ahaanba shacabkii cadaysnaa waxaana jawaabtaasi ay sidoo kale dhashay in qaybo kala duwan oo ka tirsan hogaamiyayaasha caalamku ay iyaguna ka hadlaan si dhibaatadaasi loo soo afjaro magaalada Addis Ababa ayaa waxa lagu daadiyay kumanaan ciidan ah oo ah qaybaha kala duwan ee ciidamada wayaanaha kuwaasi oo cadaadis iyo caburin xoog leh loogu geystay guud ahaanba shacabka dalkaasi Ethiopia ciidamadaasi ayaa waxa ay guryaha ugu galeen qaybo badan oo ka tirsan shacabka caadiga ah ee magaalada Addis Ababa ku nool sidoo kalena waxa la xiray guud ahaanba suuqyadii iyo meheradihii waaweynaa ee ku yaal magaalada Addis Ababa waxa gabi ahaanba la xayray isu socodkii iyo dhaqdhaqaaqii bulshada si loo xakameeyo wax kaste oo keeni kara in mudaharaad rabshada wata mar kale ka bilowda magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Ethiopia haddaba waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay gabadh kamida gabdhaha reer Ogaadeniya oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia taasi oo aanu wax ka weydiinay bal hadda xaaladda magaalada Addis Ababa iyo sida ay tahay kadib rabshadihii la soo maray iyo waliba sidoo kale saansaanka magaaladaasi iyo waxa laga filan karo waxaana ugu horeyntiiba aanu weydiinay gabadha bal hadda jawiga guud ee magaalada Addis Ababa iyo sida xaalku yahay bismillaahir rahmaanir rahiim walaal xaaladda magaalada Addis Ababa way kacsan tahay dawad maqasheen kulay dhibaatooyin badan iyo mudaharaadyo ka dhacay dadkana dhibaato badan baa soo gaadhay inta aan kulay ognahay waan gartay dadka dhibaatadu ay inta badan soo gaadhay waa dad noocee ah ma dadka oo dhan baa mise dad gaar ah la bartilmaameedsanay dad gaar loolama jeedin baan u maleynayaa mudaharaadku kulay uu socday wuxuuna ku socday xal looga mudaharaadayo dadkii Liibiya lagu laayay markii dambana arrimo kale isu bedesho siyaasadaha dadkiina ciidan badan baa lagu soo daayay dad badan baa meesha ku dhintay kulay dad shacab meesha ku baaba'ay oo nuqalaysan aniga oo arkayay dad badan oo masaakiin iyo dad haween iyo ciyaalba mudaharaadkii waa dad badan baa lagu laayay waan gartay kooxaha mucaaradka ah iyo ardayda jaamacadda ayaa la sheegay dad fara badan in laga xidhxidhay ayada arrintaasi maxaa ka jira waa run arrintaasi way jirtaa oo ardaydii jaamacadda ayaa aad loo xidhay sababta
waxaa laga cabsanaya inay ardaydu ay dhibaato keento wad ogtahay adduunweynaha ama wadamada kale inay dad dhalinyaraha ay mudaharaad wax bilaayaan Ethiopiana saasay ka cabsanaysaa ma la soo daayay hadda oo ma la sii daayay mise weli way xiran yihiin maya way xiran yihiin wax sii dayna on hadda kolley ognahay ama aan maqalnay ma laha kolley anigu magaaladana waan u bixi kari laana waan cabsanaynaa anigu 7 bari baan joogayna guri uman ku jiray markaan isdhaha banaanka u baxna ciidan badan iyo dhibaatooyin badan baa jira waan gartay ciidamada guryaha dadka ma ugu galaan oo ma soo galaan guryaha mise banaanka un bay wareegayaan maya guryaha qaar bay galeen ba kolley la igu yidhi aniga inkastoo ayna gurigan jooga ayna soo galin guryo dariskayga galeen oo dad ka baadheen oo leeyihiin dad argagixisay waxyaalaha soo galay marka baadhitaankaasna wuu socdaa banaanka looma bixi karo markuu gobolku dhacna kaba daranba magaalada waa bando waan gartay saaka dhaqdhaqaaqa magaalada caadi ma ku soo noqday maadaama subax shaqo la joogo waa see xaaladu maya dukaamada badi way xidhan yihiin hal oo weliba cabsanayaan ma ogiye becsharadii magaalada aad uma shaqaynayso sida horena ma aha waan gartay marka rajo ma laga qabaa in ammaankii iyo nidaamkii iyo kala dambeyntii magaalada Addis Ababa ay dib ugu soo noqoto kolley inay soo noqon mar looma hayo waa la cabsanayaa dhalinyaro badanna way mudaharaadsan yihiin mudaharaadyo badanna inay hadda dhacaan baa laga cabsanayaa sababtoo ardaydii jaamacadda haddii la xidhay dee kolley shacabku way mudaharaad way diyaarinayaan baa kolley aan maqmaqlayay kolley hadda cabsi ciidankiina waa lasoo badiyo ciidan badan baa magaalada lagu soo daayay waan gartay waxaad ii sheegtay inaad 7 joogtay xageeda kasoo ambabaxday ka hor intii aadan imaanin magaalada Addis Ababa waxaan kasoo ambabaxay magaalada Jigjiga kasoo ambabaxay waan gartay bal hadda ka waran inta aad ka ogtahay magaalada Jigjiga iyada saameyn ma ku yeesheen dhibaatooyinkan magaalada Jigjiga iyadana mudaharaadyo ka dhacay oo looga mudaharaaday dadkii Liibiya lagu laayay dadkii Ethiopianka ahaa kolley mudaharaadyadaana dee cabsi un bay dadkii sheegayaan oo dadkii meesha deganaa way cabsanayaan mudaharaadyo badan oo ka dhacay madaxweynuhuna kolley dee uu ka soo maqnaa waan gartay mudaharaadyada halkaasi ka dhacay yaa abaabulay ma dadka shacabka ahaa iskood u sameeyay ogaanta mise waa mid la abaabulay oo loogu talagalay maya shacabku muna abaabulin waa mid la dhahay soo baxaa dee kolley waad la socotaa malmaniya waddanka waxaa ka jira dadka soo baxaa la dhahaa waa waxay xukuumaddu abaabushay shacabka ma aha waan gartay marka hadda la fiiriyo guud ahaan gobolada kale ee waddanka Ethiopia maadaama aad caasimadii ku sugan tahay wararkeedin ka soo gaaraya waa warar noocee ah kolley wararka anaga naga soo gaaraya maadaama ay dadkii joogaan ehelka ahaa waa la cabsanaya un baa la leeyahay aniga waxaa joogta hooyadana waxay igu tiri waa la cabsanaya balaalka waxoogaa iska joog ma aqaano wax dhici doona kolley waan gartay doorashadii iyadoo la gaarin baa dhibkani hadda uu ka bilowday Addis Ababa xilliga doorashada maadaama aad halbowlihii waddanka Ethiopia aad joogto dadku saadaal noocee ah ay ka bixinayaan wallahi dadka shacabka saa'id bay u cabsanayaan dadka shacabka ana sheekooyinka ay ku sheekaysanayaan ama ay sheegayaan waxay leeyihiin waddanku haday doorashada markay soo dhawaato kolley qofkii ka bixi karna uu ka baxaya qofka hadii awood aan lahayn inuu ka baxana kolley wuu cabsanayaayo inta badan guryaha la joogo daawadayaal weli barnaamijkeennii ayaynu dhexda kaga jiraa ee magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Ethiopia waxaa haatan la soo dhoobay sida wararku ay sheegayaan ciidamo aad u tiro badan oo ah noocyada kala duwan ee ciidamada gaar ahaan kuwa militariga Ethiopia oo wata gaadiidka dagaalka waxaana ciidamadaasi sida warka aanu ku helayno ay fadhiisimo ka samaysteen jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Addis Ababa ku yaala dhinaca kale safaaradaha reer galbeedka ayaa iyaguna waxa ay digniin u direen guud ahaanba muwaadiniinta u dhashay dalalkooda ee ku sugan dalkaasi Ethiopia waxaana gaar ahaan safaarada dalkaasi Ingiriisku ay digniin adag u dirtay guud ahaanba muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Ingiriisku in ay yareeyaan dhaqdhaqaaqooda kuna ekaadaan goobaha ay kaga sugan yihiin dalka Ethiopia wax dhibaatihii ay dhacdo durba loogu gurmado amaba ay uga nabad galaan rabshado ka bilowda dalkaasi Ethiopia dhawaan ayay ahayd markii safaaradaha dawladaha Ingiriiska iyo waliba Norway sidoo kale ay digniin uga bixiyeen mashaqo ka timaada dalkaasi Ethiopia taasi oo ay uga digeen qaybaha kala duwan ee muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi Ethiopia safaarada Ingiriisku iyadu waxa ay si gaar ah digniin ugu dirtay
dalxiisayaasha ka socda dalkeeda ee ku sugan dalkaasi Ethiopia kuwaasi oo ay ku amartay in ay soo gaabiyaan socdaalkooda iyo waliba dalxiiskooda ay ku joogaan dalkaasi Ethiopia oo haatan ay ka cabsi qabto safaaradda Ingiriisku in ay ka bilowdaan dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata kuwaasi oo ay ka baqayso in muwaadiniinteedana ay dhibaato ka soo gaadho daawadayaal barnaamijkii bandhiga ilays ee cawaysinimadan caawa ah intaasi ayaana ku soo afjaraynaa ee tan iyo inta barnaamijkan mid la mid ah aan isaga imaanayno في أمان الله